warkooda u sameeyay ogaadana inaad u maqan tihiin nin walba oo dibad jiraay wuxuu u maqan yahay dadkiisa iyo dalkiisa waana idinku xisaabtamaynaa waana idin sugaynaa baahida iyada inaad wax nagala qabataan taasi waa taa dowlad goboleedka puntland wasaaradda waxbarashada inkastoo aysan nala joogin waxaan leeyahay dugsiyadu maaha inta laamigu ku yaal dugsiyadu waa badan yihiin waa in la soo boqdaa xataa hadduu buur dusheed ku yaal waa in la soo boqdaa oo la ogaadaa baahida iskuullada ka jira waa in la ogaadaa bal waxqabadka iska daaye haddii lagu soo boqdo oo waxa baahidaadu tahay lagu weydiiyo taasaaba wax weyn loo ah bacdi qofku hadduu jiran yahay sidee tahay qalbiga isaga roon tahay see tahay waxa ma aan samayn waa u timi see tahay tir waa ka tag leenahay waxaanu rajaynayaa in laga gaarsiiyo qolada maamulka degmada waxaan leeyahay horta sideedaba qof jirka bini aadanka intaas madaxaabaa xukunta weligoodba haddii lagu firfirig leeyihiin oo gacmuhu firfirig leeyihiin oo intaa badniga ay shaqaynayaan haddaan madax shaqaynayo oo kala maamulayaa jirin ma shaqeeyaan iskool baan shaqaynayn caafimaad baan shaqaynayn arrimo bulsho oo kale aan shaqaynayn haddaan maamul jirin waa in maamul magaalada uu jira maamulkana waxaan ku boorinayaa arrimaha bulshada waa inay u dhega daloolaan oo ay gacanta ugu horreyn u fidiyaan siiba waxbarashada iyo caafimaadka weliba waxbarashada iyo caafimaadka waxa sii qawisan oo baahida u baahan waxbarashada leannahu caafimaadka yaa u baahan caafimaad waxa u baahan nin jiran laakiin waxbarashada yaa u baahan dhammaan dadkaa u baahan taasna waa taas oo maamulkaan leeyahay dadka dadweynaha degmada qandara mid baan leeyahay ka faa'iidaysta fursadda dahabiga oo in soo martay jamhuuriyadda soomaaliya meelo yar bay ka jirtaa meel haddeer bilaash ee waxba lagu barto dawladda in siyaad baraa ugu damaystay waa inaad ka faa'iidaysataa waa in la keenaa carruuraha aqoon darrida ku weynaaday oo qararka iska jooga oo dayacdarrada iyo hadhowda beri kamaan uga qomamayn doona yacni jahligu uu dhaawici doono waa in la keenaa isimada ugu dambayn noo yimi waxaan leeyahay aad baa ugu mahadsantihiin booqashada aad noogu timaadeen waxaan rajaynaynaa inaad marar badan oo kalena aad noo timaadaan waana ku faraxsanahay imaadkiisiina wax badan oo aan oran lahaa waa jiraan laakiin waktiga gaaban awgiis intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum anagu jaa'isadii aanu bixinno annagoo ardadii lahayd haddar mid halkaa ugu yeerayna arday kasta markii loo yeero waxaa la doonayaa inuu ka soo bilaabo geeskaa salaan ilaa uu sabdaanka siinaya jaa'isada uu ka qaato kow fasalka saddexaad ardayga la yidhaahdo cawil yuusuf ciise ma jooga cawil yuusuf ciise falyatafadal عاول يوسف عيسى فصل كواد فصل كسدحات أيوب كوك كقلي فصل كسدحات أيوب كوك كقلي وكاس لطك اسمه فصل كسدحات نمبر لو نك قلي محمد فارح آدم محمود فارح آدم فليتفضل صودق وسط أيوة نوع الله ما شاء الله فصل كصدحات ساعد محمود حسين فرق halka waxa ku dhamaaday fasalka saddexaad saddexdiisii nin ee jaayisada qaatay haddana waxa bilaabaya fasalka labaad koow ninka u galay waxa la dhahaa Cabdixakiim Ahmed Cabdullaahi falyatafadal
فصل كلمات قفك الله وجهي لبو وحال ده جبر ويه حفصو صلاة الحي حفصو صلاة الحي حفصو صلاة الحي أنا صوم أنا صوم هذا اوكي فصل كلمات صدح واحد قالي عمر محمد عثمان عمر محمد عثمان halkaasna waxaa ku dhamaaday fasalkii labaad ardadii 1 iyo 2 iyo 3 hadeerna waxaa bilaabmaya fasalka koowaad ninka koow galay oo ah maxamed caynab cumar الله وها قلي عبد الحكيم فارح يوسف عبد الحكيم فارح يوسف اوكي فضل كواد نمبر 3 واحد قالي قبر ويه فايسو اسماعيل احمد فايسو اسماعيل احمد فايسو اسماعيل احمد وايي halkaas waxa ku dhamaaday koowaad waxa bilaabmay xadaarooyinka oo koow xadaaro alif waxa koow galay waa gabar Aamiro Maxamuud Saciid Aamiro Maxamuud Saciid لما واحد قال كوثر روبلة إسماعيل كوثر روبلة إسماعيل صدحنا واحد قال واسلا فصل كودن باقبدا أم الكرسون محمد جبريل halkaasna waxayna ka dhamaaday fasalkii xadaano alif xadaano ba koo waxa u galay maxamed faysal aadan ما شاء الله لبا وحا وقلي سعيد احمد ابراهيم سعيد احمد ابراهيم نمبر 3 وحا وقلي عبد الله موسى فارح وجه رصاص على موسى فارح تفضل هل كانوا سيبا لي على مجيم وهو الرئيه كو قلي عبد الله محمد سعيد عبد الله محمد سعيد وهذا قلي احمد راقي